Queenhawa waa gabar dhalinyaro ah oo hindista nashqadeynta dharka sidoo kale waxay u sameeysaa tolmo iyo xayisiin waxay ku maareysaa nolosheeda iyo inta ku teedsan waxaan la kulmay xilli ay ku jirtay iyada iyo saaxiibadeed soo bandhigista dhar cusub waxay iga warantay sida ay ugu dhalatay nashqadeynta dharka iyo tolmadooda inay sameyso nashqadeynta dharka waxay ku dhalatay xilli hore adiga 2015 meelahaas waxaan u sabri jiray artist ahaan laakiin 2016 meelahaas waxaan bilaabay inaan gacanta bal waxaan ku tolo tulinkii aan gacanta wax ku naqshadeeyo dharkii ama dharka inta soo iibiyo dhar dumar u bedelo oo gacantii aan ku naqshadeeyo oo tolo cirbaduna waxaan ku tolo kadib 2017 xilli aan aad u la socday barnaamij oo fashion show oo la yiraahdo project runway ka baxa TV-da Carabta aan la socday waxa ku dhalatay in aan waxaan si toos ah u gungalo ama aan ku shaqeeyo aan naqshadii si toos ah u soo saaro waxaan ku shaqeyn jiray horta waxay ahayd in talaban ku shaqeynaaye naqshada waan sameeynayaa in kadib aan sawir ka qaado social media galiya customer-ka ama gabdhaha hadii ay qanciyo inay iga soo dalbadaan aan dib ugu sameeyo dalab aan u shaqeynaayo bas laakiin insha Allah xilli dhow waxaan rajeynaa meel ay ugu hagaagaan toos ah oo shirkada inaan u sameeyo hawsha Hawa ma jiraan dad badan oo xirfadley ah oo looga bartay inay sameeyaan waxaan weydiiyay hadii ay la kulantay wax caqabada ah intii ay ku guda jirtay waxyaabo badan kala kulmaa in hataa dhalinyarada qaar ay ku dhahayaan gabar ma artist ka baranay ama adoo gabar ma harqaanto leh sida nimankii aw xataa dad qaar waxaan xasuustaa markan bilaabay inay qaarkood ku dhahayaan dhar wadanka lagu sameeyay maxaan ka xiranaynaa yani dharkeena dibadda laga keenay waxyaabo noocaas ah oo ay ka doorbidayaan wixii wadanka lagu sameeyay wax banaanka ka imaanay caqabado noocaas kala kulmo aad badan walaahi hadallo xun way jiraan laakiin waxaan dhihi karaa in hadii wixii go'aankiisa qaadatay saameyn ku yeelato waaba qaladba hadii go'aan qaadatay waxay tahay in hadafkaagiisa hor dhigto dadka hadalkoodana aad ka dhagalaato wada maqlinba dhanka kale Queenhawa ayaa waxa ay ka heshaa shirkado kala duwan xayisiin ay u sameeyso dharkooda waxa iiga sheekaysay sida ay uga hesho shirkadaha xayisiinta dharka inay u sameeyso ama ay uga soo dalbadaan xirfadaha la badan yihiin alxamdulillah in artist ka kamida gacanta waxaan ku sameeynaa in decoration ka kamida model ka kamida waa meel kama baranasna sidoo kale in xayisiinta waxa marketing aan kasto ku fiicanahay oo aan baran iska badan yahay